السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن داوديال كنا سو دوادا برنامجك وعي. برنامجك ما أنت وحين كفلنقيننا برنامجتي أنه كفلنقين جرني برنامجك وعي وحين كو إجينا صدح عتب أو حساسية مهم إن يتهينا أنه آمن سنهي. وجهرينتي وحين كو بلعبنا سياسة صومالية يمانتا كساردي ماشى لفظ جرين كدب maxaa xigi doona sheekhana shukran markaad eegto Djibouti markii shirka carta lagu qabanayay 4.5 waxa loo suubiyay lil maslaha maahin hal maahin macnaha xaq maahin laakiin hal buu ahaa beedood ahayd to dadkii u imaanayay dadka Soomaalida ee dawladda meesha ku dhisay meesha yimaadeen markii yimaadeen Djibouti yimaadeen iyaga qabaa'ilka u suubsanaaba waxay suubsadeenna ku qanacay صح weey تصدحاتنا adiga laftiga waa joogto qayb baa ka ahayd waxaas iswaafajinaysaa anigu soo dhaweynta iyo waxaan ku jira iyo horta fikradan la dhahdo qabiilka 4.5 la dhahdo Ismaaciil ma waxa sameeyay siyaasiyiin Soomaaliya wala imatay oo iyo aqoonyahan Soomaaliya Ismaaciil oo kula qanacay laakiin dadku way khaldeen markii leeyahay Ismaaciil baa sameeyay فيلسوف كمشكلة ما إسماعيل رجي سمينا مقعد وان قرنا حقنا كش شيء مرة صح وهبل وأقويها وينا يك هوس ورفر يستوى شيء سام ما هنا سكر المس عن السيد هذين لكن كواس بحكم بقنا واحد لحظة الرؤية الواقعية بيسيتين ريالي تيجي أركيين الرؤية المستقبلية من أركي يا ده سواء نقولها سومالي ماشى تمد بقى وذاتين قبيل تمد أنا كجيبوتي وكلام مركي لسمينا عقلي بالليمي ده مركي لقلي الديمقراطية ده بريجي وحالني تمصنوا أفر حزبي أو قرأ بجري بعد تمصن حزبي ده ولا فرق بال في عم بهذيك سؤال جبودي وحتى الله وطلع إلا وتخبرته وحال إيجي رئالي تيجي بك مستقبل كانوا ولا إيجي ورجوا يبغى فكرة بريجا وأضيع عليكم إيش دولة يجي رجع قوية هنا ماشي في الديو فكرة لكن سومالينا وحنا كم مقنع إمي سأهاني ساسدا إلا قرأت كبحتان لوجو تلاقلوا وإلا سمي واحد هذا exit strategy دي exit ولا جرين وحوي تنا أولي جاب الله بعد كريتي بركة تاسي وامي تاس ويان أوكي مشكلة ده مركزي إن أردتني أي كإنسان يسوي ويان إن أي سوماليدو دوقة سياسية أي كبعي كريويدو أو كوسا ليسن قبيلة ده نظام فدرالي وقبيلة ديسن هي الديمقراطية أن الدين sida loogu shaqeynay iyo dadku shaqeynaya marka dabin loo dhigay ahayd baa leh waa damin ay isku dhigeen waa damin loo dhigay maaha damin isku dhigeen waa qul huwa min indi anfusikum waa damin ay isku dhigeen gartay oo ay keensatay الجهل بالسياسة iyo الجهل بالواقع akhrista siyaasiga dadka waqtiga aad bay u fikirayeen si u muuqateen moodeynay laakiin waxaan maqnaa wax loo yaqaan bisel siyaasadeed haddana lama rabo in laga bislaado wala si dhex fadhiya اوكي marka su'aashu maxay ahayd gartay waxay ahayd مثلا arrimahaas maxaa xigi doona lafta gareen kadib markii la sameeyay dastuurka isbedelkiisii iyo lafta gareen iyo مثلا koonfur galbeed oo lagu duulay horta al-ustaad Xasan Sheekh waxa weeyaan waa nin saddex sifo oo cajiib leh oo dhinaca positive ka صدح صفة أولى دين عن نيجاتيف كا وصدح وحن سمينا الشخصية تحليل الشخصية الشخصية صفة الكوباد أولى وحويان وانين أقويانا أقوان وحوك جاري ماشي بني آدم كجارو دكتورة واجتا وحن أركرها ومدحوينها حقورها إيجيس كأفريقيا إيجاري هالكاس وسياسي مدحوينها إيجيس كأفريقيا يهالكا جاري لما وصلوا هذا لمبر 2 waxyaalada uu ku wanaagsan waxa kamid ah dalkan dibadda uga bixin wax uuna ka soo shaqeynaa ma jiro taam sifo wanaagsan waa sifo wanaagsan xaga wadaniyada yani wax kasta dal uu dhoofay adduunka u tagay laakiin dalkiisa ayuu ku dhex dhintay uu la gaajooday Soomaaliya mujtamaca ma aha nin dibad ka soo duul ah dalka kuma soo duulin dalka uu dhex fadhiyo kama danaysan isagoo fadhiyo dantiisa ka shaqeynay wuxuuna ka soo shaqeeyay waxyaalaha xaqaa'iqa iskool uu asaasay jaamacad uu asaasay mooto uu wadan jiray dariiq uu la fadhiisan jiray inuu gaas iibiyo isaga xaskiisu
يعني نرشة مال حصل لك صوب لا dadka qaar waxay u arkaan inay saas ugu badisay asaga يا sidaas inay asaga ugu badisayba أمريكا dadka نكال qaar u arko ha هالكاس بصومر وناج يعني gartay مدة ستحد وانين فريق له كوح بوليه مقعد دون هلا سيا ديك جديد دم جديد وحي دون بحي كتلو ليه هي كتلة سياسية على صنعتها كتلة داسي مدقيستها وشيكا وشيكا دون ميسي مدقيستها صدح راسي waxay la tahay aniga waa positive kiisa gartay saddexda negative ku saddexda negative ka loo imanaya waxa la moodaa Xasan Sheekh inuu xukumo dowladnimadu u dhantahay sidoo u shaqeynayo waa qalad weyn dowlad la kabkabayo uma arko dowlad la dhisayo uma arko dowlad miskiin ah uma arko dowlad buuxdo oo xoog badan oo jirto oo sidii Qadaafi oo kale u shaqeeyaa ama sidii Maxamed Saad Barre أما سيد إسماعيل عمر جيل أيوة شقيا تاسي وقال ونجاتي في أولية مدة لبعض أولية وحويان مركز قاركود وحاس كدر سما سيد ساحب كي جيل دولة ده يوحو قالوا لي وقال ده أولية كميتها وحابوا وسكب بحنا روكو يبينيا حافظوا يبينيا وحنو كشقينا التصرف وأنا ضمت دولة بكلي دولة هيئة مجرى ورمج مجرى سقا وعلى سقا سياحية مدة صدحات خطرت أو وليه وحويان أسلاهي ومشكلة وين شيخ هايستها ودنا على سياسة ده كايسته وحويان مركا أو ربو إن أو قرار قاتو متشض وحونا هايستها كوح يرو وحو قاتبه أصحيحدا وانا بدحويني يقول رئي هلا رئيس الوزارة جبان جلعسان طبا صعدا رئيس الوزاري هو فورماجو حسن خير aad buu socday 3 sano bar wada socdeen laakiin shakhsiyad muuqato laha xasan oo dawladnimada u wadayay kana uga farabaxay marka qaarkood marna way wada wadayeen marna way kala wadayeen ilaa is khilaafeen kuwii hore saas oo kale ahaayeen oo kala iskhilaafayba laakiin isagu wuxuu soo qaaday nin sidaas oo kale taa walidaalika wuxuu u shaqeeyaa sidii madaxweyne aan ra'iisul wasaare lahayn amba dawlad aan baarlamaan yahayn sidii u shaqeeyaa waa negatifiyada uu leeyahay marka xasan marka muxuu ka fikiray ballanqaad buu dadka u ballanqaaday ah in dastuurka uu bedeli doono uu dhameyn doono dastuurka qabyada ah uu soo saari doono dastuur abadi ah waxa loo yaqaanaa qaanuunka dastuurka daa'imka wadanku leeyahay laakiin maanta khaladka weyn uu galay waa maxay maada bacdu soo wadiinaysa wuxuu sameeyay laba dastuur wadanka jira dastuurkii qabyadii dad baa haysta oo ixtiraaf oo halkaa ku haray oo kale anaku dastuurkayga waa kii qabyada ahaa kumana aqbalayno wadanka markaa waxaa ka jira dastuurkii 2012 ee qabyada ahaa waxaana haysta dad fara badan oo siyaasiyiin iyo gobollo isaguna wuxuu sameeyay dastuurkii abadiga 2016 oo baarlamaanka mariyay baarlamaankii oo la dhaneyn خلطنا معنا واحد كمذا بارلما كمان رجعت لتاجي ولا تاجي والوقت دلنا يقول لي والديه ترى ما جرتو نيك ماذا حكى محوها بارلما هذا المذوبي واللي باح نيك هسي باش وضع اللي باح معك وضع وحن كوضع والدولة ان يستحكمين اون كلا شقين او وضع شقين هسه وسيستم كو وصو شيء اسماعيل واتانكو بخي جيبوتياني تيجي صوماليدا اسماعيل وحو هذا waxaan rabnaa baarlaman iyo maxkamad iyo dawlad iyo ciidan wada socda iyo warbaahin wada socota wada ka dhada mar rabna wax kala socda in la xisaabiyo nacay moot tiibu ku guuleysay marka ra'yi kale ma jiro baarlaman wali xisaab sameeyay maartay dawladda jirta ma jirto laakiin wuxuu leeyahay xasan sheekh iyo groupka taageersan waxay u arkaan in sidaas maslaxad Soomaaliya ugu jirto maslaxad bay ugu jirtaa qofka maamulka fadhiya laakiin ummadda maslaxad ugu jirto مدة أفضل منطقة صح قرأت ما وحي هذا دون تبع سواء قادتها خطبته حسن جديدي مركي فرماجة دمات كيسي لحدي بيرد قدام بس إمك سواء هذا صار وح إليه المعارض ووحو إمك سوى أورنجري وحسن جوابها كلمة بان حسوستها وحاكوها دي أفر بيرد كديب منه قول يسيد مدحويني dad baa kuu dhiibtay iska soo celi waan ku sugaynaa soo saar madaxweyne waan ku sharfaynaaye ayaan dhowt waxaan maqlay Cabdiraxmaan oo saakule
saysaa kule marka watilka alayaamu nudaawiluha bayna annaas marka waxaan isleeyahay maadaa bacdu maxaa ka dambeeya maaragtay dagaalkii maalintood lagu qaaday koonfurta galbeed ee lagu qaaday maarata dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal siduu ku dhammaaday waxaa loo yaqaanaa comedy mataqaanaa comedy masraxiyaadka tragedy jilidda waxaa loo kala saaraa tragedy iyo comedy tragedigu waa mida geeri ku jirte muruga ku jirto midna waa qosol aad aan u qoslano shactira ku jirta maxaa yeelay shactira waxaa sheekh xasan sheekh dagaal baa soo socda diyaaradaa la soo kiciyey doobadaa la soo kiciyey waxba dhicinba ninkii waa la waayo nairobi ma iska fadhiisa ninkii miiska hoostiisa iskala hadlay miiska hoostiisa horaa loo sii hadlay wixiisana u qabaa turkiga iyo etoobiyana way galeen waa la dhameeyeba alla dhameeyeba meesha yimid waxba dhicinba waxaan marka dadka la wareerinaya nin xoog lagu furayo waxa weeyaan iyaaka acni waxaa loo jeeda madowaa loo dirayaa jubbaland baa laga leeya wallaahi adiga arkaya marka xitaa diyaaradaa la kiciyey liawal mara fi taariikh markaasi laakiin wuxuu u dhamaatay ninkii isagoo iska caadiya oo faraxsan nairobi iska tagay iska nabad galay laakiin muxuu ku nabad galay ya cinda juhaynat alkhabar alyaqiin ma maqash juhayna warka runta ahay samaarta baamahda carabiya tabada cinda turkiya alkhabar alyaqiin marka waxaan turkiga ka dambeysay dowladda turkiga iyo khabar ku yaala iyo cabdiqaadir maxamed nuur madaxana rag fara badan jazaaka allah khayr wareegta sheekh dhinacaas markaynu ka imaano mucaaradka soomaaliya dowladeeda waxaa mucaaradku ah laba gruub oo isku tegey labada gruub oo isku tegey waa labada aad garanaysa ee madaxdii hore ee isu imaaday uu isu bixiyey maalan madasha mustaqbalka soomaaliya iyo mucaaradka qeybo kamid ah oo ah maalan maamul goboleedyada qeybo kamid ah sida madaxweyne saciid cabdulaahi deni iyo sidoo kaleba madaxweyne axmed madoobe jubbaland iyo puntland labadaas iyo gruubkan oo isku tegay oo siman oo gruub suubsaday madal suubsaday baa mucaaradka maanta ah laakiinse su-aasha muhiimka ah ee qaaliga ah waxay tahay maxay doonayaan mucaaradku waxay leeyihiin laba hadaf oo waaweyn oo istaraatiiji ah labada hadaf ee waaweyn istaraatiiji waxay inay xasan ridaan kursigana ka qaadaan waa hadaf istaraatiiji ah hadafka labaad ay leeyihiin iyaga dhexdoodu mid ka mida inuu meesha koro iyagoo isku dabal joogaan wayna wada socdaan wayna kala socdaan mid walba wuxuu isleeyahay hadafka kamida kan kale yuusan korin adiga kor gartay hadaf soomaaliyeed male intooda badan soo aad garatay maaha walidaalika shacbiga soomaaliga waxaan u bixiyey shacbun taa'ih bayna fariiqayni laa yamliku axaduhuma mashruuc siyaasi shacbigani wuxuu ku dhex baaba'ay laba kooxood oo midna uunan hayn project siyaasi ah maxaa u diidayo inay mashruuc siyaasi ah samaystaan ama yeeshaan maadaama ay kursigii dalka ugu sarreeyey ay doonayaan ummad badanna ay ka dambayso bal adiguba nin baa tahay wax akhriye oo saxafiya oo adduunka la socdee bal ii sheeg projectiga uu la iman doono walaalkii deni kursiga weyn ee soomaaliya maantana wuxuu bedelay golihii wasiirada ee puntland muxuu yahay mashruuca uu la imanayo matalan ka soo qaad ee qoran baan rabnaa madaxweynayaasha ragga u tartamaya marka midaasi horta waa midda waxaa labada u bixiyey waa laba hadaf oo istaraatiiji waaweyn oo iyaka waa su-aashu markaa waxa weeyaan may ka adkaan doonaan isaga mise kama adkaan doonaan su-aashaasi xasan sheekh waa su-aal waxay xadidaysaa markaa taasi mataqaanaa mustaqbalka soomaaliya laakiin in dadka qaarkood waxay isweydiinayaanba ma ka adkaan doonaa mase ma ka adkaan doona intaan la isweydiininba horta doorashaba ma dhici doontaa dhaqanka xasan sheekh maxamuud goorta aad eegto waa run weyaan laba shay waa filo in mucaaradka gaar ahaan reer muqdisho ah maalinta ay ka dhammaato xasan sidii farmaajo in jidadka la fadhiisan doono may 15 jidadkana loo soo bixi doono
asagana lii doona ka soo baxa villada ka soo bax loo doono waxaanan maqlay inay ragga qaarkood ciidan ay ku boorsanayaan laakiin soo ma kala duwanayn farmaajo iyo xasan sheekh farmaajo wuxuu reer xamar marka la fiiriyay qabaa'ilka siday u degan yihiin ma aha la dhahaa watii hadda ka hor ay sheegeen inuuba marti yahayba xasan sheekh laakiin magaaladiisii uu ka soo jeeday oo ku dhashay oo dadkiisa ay joogaan sax weeyaan xaggana waxaa jooga shariifkii baa jooga oo lamid ah shariif baa jooga lamid ah xasan khayraa jooga lamid ah cabdiraxmaan shakuur baa jooga cabdikariim baa jooga dacada kale marka waa la joogaa reer laskuma faani karo xaggan marka ma noqon doonto ha meeshu Djibouti maaha gartay waa garasoo maaha gartay meel la xeraystay dadka maaha waa meel dadku xor yihiin marka taas waa midda koobaad la filayo mid labaad baa la filaa waxaa la filaya wax weeyaan lacagtii khaliijka ee sida biyaha u imanaysay iiraan baa baabisay iiraan baa ma jirto iyadoo la imaaraat baa doonaysa Soomaaliya inay soo gudbatay imika la qatar la sacuudiya iyo markaa faragelinta soo socota ayaa iska leh mustaqbalka Soomaaliya ya afar dowladood oo afartee Ethiopia loo kala bari imikadan caasimadda Ethiopia rag baa fadhiya saacada wada hadlayno rag mucaaradkiya Nairobi Kenya waa lagu samayn doonaa Djibouti rag baa fadhiya saddex soo maaha Turkiga afartaabaa madbaxa jikada lagu karin doono marka afartaa ku darsana Masar oo itaal badal lahayn oo arrimaha dibaddu ay daciif tahay oo istaraatiijiyad weyn aan lahayn aan qaltaagna ku jiro iyo tartan ay Ethiopia la qabto marka shantaas laakiin afartaa baa ay muhiim ah lacagtu afartaa bay ka iman doontaa afartaa baana ku tartami doontaa Soomaaliya dhexdeeda so wax ay ka koreen hadda ka hor oo dowladahan dariska ah inay dib ugu soo laabteen oo hoos loo soo dhaadhacay ku muuqataa 100% laan rag lacag ma haystaan waxaan u baahan waxay ku galaan dagaalka wixiiba ah iibsi horta doorasho la yiraahdo maartay nin iyo codkii ma dhacayso Soomaaliya xagga socota laba gobol gacanta lagu hayo oo weyn Puntland iyo Jubbaland xamarna markay ka dhamaato kama dhici karto baarlamaanka waqtigiisa baa ka dhamaaday waxaan suurta gelin weeyaan marka waxa la yiraahdaa ida aradta an tutaa fa'mur bil mustataa haddaad doonaysid inaad la adeeco waxa suurtagal dadka amar ku sii ilaa man ikhtalafa ghurfatan biyadihi laakiin wax aan suurtagelin exit haduuna jirin waa bisad guriga ka xidhatay oo dilaysid waday kugu soo jeesanaysaa marka aniga waxay la tahay gacanta waxaan u galanaa dowladayda mar anu waxaan bari garanayaa nin Suudaani oo mukhaabaradan Djibouti kula kulmay oo sida nin saaxiibkii la socdo iminka qolooyinkani Ismaaciil Umar la socday markaan ka sheekeynaa wadaad hanjirin uu yahay wadaad iska cad laakiin wuxuu ninkaasi war buu ku wadaa wuxuu yiri waan shadad buu sitaa markaa waxaa shadada ku jira dhowr boqol oo kun oo dollar oo Umar Bashiir soo dhiibay Umar Bashiir ka xidhan wuxuu ugu soo dhiibay in dowladda Soomaaliya la kala siiyo ragii tartamayay Shariifka Xasan Sheekh loo kala dhiyo ninka waa mukhaabaraad shadad buu sitaa dollar madaarku kala soo dhacay madaarka Khartoum ilaa madaarka Djibouti na dowladda is ogyihiin lama baadhin haddana xamar uu duulaya Sudan way dowladda imika waxa bilaabay dowladahan kale marka malaf Soomaal falka Soomaalidu wuxuu yaalaa meelaha kale qoliyo darasa siyaasadda dadka soo bixi doona waxay daraskooda marka ay sameynayeen hadda ka hor dhowr jeer ku soo guuleysteen oo Xasan Sheekh in la dooran doono ayaga si oo darasay waxay degan yihiin waa consultant group xamar dhexdiisa degan hadda waxay darasayeen in uu madaxweyne Farmaajo soo bixi doono laakiin dharbaaxadii ka dhacday koonfur galbeed iyo daba marka ay dhinac mareen shaki uu galay mesela 77 xildhibaan halka ka soo bixi jirtay oo darasyadii la darasay ma kula tahay inay wax iska bedelayaan aniga daraskayga laba nin baan ku sii sheegay oo daraskayga waa Farmaajo iyo Saacid labada mid كيف هي ويدين تانا حجزنا بك لكن والله وضع ميدكود ويا قرتي ان waxaan qaar dadka qaar waxay oran doonaan farmaajana bari hore leera socon jiray la jirjiray oran doonaan haddana dhacay faad way saab iska oran doonaan laakiin aniga sa ila tahay
taxliilka soomaalida marka la sameeyo waxaa dhammaaday reer baa iminka dhammaaday reer kalaa soo koraya soo maaha reer xamarkuna run ahaantii lama jeclo in dowladda loo dhiibo puntland liasbaab aniga kole kifta ay weydiineen markay sidaa noqoto labada nin reerkaa kala ah oo reerkaa kaleoo qabiilkaa kasii ah iyaa fursadda badan leh midna wuxuu fursad ku leeyahay qaacido fiican buu samaystay mar hore uuna wataa midna iminku qaacido weyn samaystay oo dadka la socday dad yar dad dheera maaha waxaa raacay siyaasiyiinta weyneed waxaana la filayaa dhowr xisbi laba xisbi waaweyn oo kale oo reer maaragtay waddanka hore ka jiraya inay raacaan bisha soo socota dood socota dhexdeeda marka ani labadan midkood baa islaahay weli marka isma bedelin xoogaa waxaa kusoo kordhay rajada waxaa sii badatay oo kor usoo kacday saacid xoogaa dharbaaxada kadib laakiin dhinaca xasan sheekh weli oo daraskaas marka aan eego sheekh shariifka anigu waxaan u aqaanaa inuu yahay nin dowladnimada ku fiican oo statement oo nabadoona laakiin fursado badan ma haysto aniga kuu sheegay saddex fiicin uu leeyahay xasana marka aniga waxay ila tahay inaan mar diraasaad baan yaro qorqore inaan mar aan saari doono markay raggaasi soo baxaan ay ummadda hor yimaadiin waxaa loo yaqaana altaxliil annafsi walshaksi lisiyaasiyiina soomaaliyiin insha allah marka ay noo haato good sheekh cutubka koobaad su-aasha ugu dambeyso marka aad eegto xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya maanta mustaqbalkeeda halkee ayuu u socdaa ayay kula tahay soomaaliya saddex shay baa hor yaalla culus waxaa hor yaalla faragelinta israa'iil ee geeska africa waa number one dagaalka bariga dhexe waa number two ethiopia oo rabta xeeb waa number three ethiopia ayaamahan wafdi weyn oo generaal ah yaa fadhiya diradhabe iyo gobolada xiga xuduudda somaliland waxayna diraaso weyn ku samaynayaan inay qaataan xeebtii waxayna dhahay maanta maalinay ka fiican tahay oo duruuftu aynu ogoshahay ma jirto duniduna waa mashquul soomaaliduna waa isku mashquul waxa inaga hor joogo quraate xabad inaan bixino ictiraaf walidaalika madaxweynihi somaliland wuxuu joogaa iminka ethiopia wuxuuna doontay ictiraafkii arrintii biixi inuu dhammaysto ethiopia ma bixinaysa ictiraaf bilaash ah waxay ku bedelatay marka soomaaliya maxaa hor yaala markaa soomaaliya maxaa hor yaala saddexdaa shay israa'iil dagaalkii bariga dhexe iyo ethiopia annaka markaa falgalkii muxuu noqonayaa annaka waxaan is leeyahay soomaaliya mid baa sax ah inay ku noqoto 91 sinuuradii alweya oo la islaayo labo inay ku noqoto carto horteed oo sinuurad labaad ta saddexaad waxa weeyaan in ay meesha ay joogto meel ba ugu socon weydo duniduna maanta waxba usoo ordaya ma jiro maandhooti wuxuu lahaa nin wasiira adduunku naga daalay kaama daalin adduunku kaa mashquulshan yahay adduunka danihiisiiba yaa halis ku jira marka qof intuu danihiisa soo dhiga adiga kuusoo faaruqaya ma jiro gartay marka laba shayna soomaalida waa looga cabsoonaya waan sheegi doonaa jabuuti marka socodko gaajo culus aad baa looga cabsoonaya inay gaajo culus imato arrinta labaadna dagaal heliya oo sokay inuu bilaabo sheekhana cutubkaas koowaad halkaasuu ku egyahay laakiin inta aanan cutubkaas halkaasaan ku ekayno su-aal baan dabirsa inaan kaa weydiiyey balse maadaama aad tiri barnaamij kale oo gooni u ah falanqaynta oo darasyada ayaynu soo biraynaa waa ka baxaya dalka jabuuti aynu u imaano iyo qeybta labaad maalan darasyada ama cutubyada aan soo birnay daawadayaal iminkana waxaad kusoo dhawaataan qeybta labaad ee cutubka labaad aynu ku eegeyno xaaladda dalka jabuuti ugu horeyntiina waxaan jeclahay sheekhana inaan ku weydiiyo markaad fiiriso xaaladda dhanka siyaasadeed iyo dhanka dhaqaalaha sidee ayuu u muuqdaa maalan maanta dalka jabuuti okay horta
waxay sheegayaan siyaasiyiinta waaweyn ee khubarada ah jabuuti waxay gashay marxaladda la yidhaahdo marxalatu fashali dowla dowladdu inay fashilanto amba qul fashalu nidaamku fashilmo waxay dhahdaan macaayiirta lagu garto noormiyada lagu garto inay dowladdu fashilantay maxaa ka mid a waxaa ka mid a 3 arrimood oo jabuuti ba ka jira ya number 1 jabuuti maxaa ka jira waxaa ka jira dowladdu inay bixin kari weydo alkhadamaat alasaasiya servicekii asaasiga inay bixin weydo dowladdu maanta dhakhtar fiican ma leh iskuul fiican ma leh caafimaad iyo labadu way dhinteen marka waxaa laga hadal hayaa in mishaarada la bixin kari waayo sanadkan dhammaadkiisa waxaa kaloo la hadal hayaa faranka jabuuti inuu sicir barar ku dhaco cabsidaaba taala marka taasi waa midda koobaad weyaan kutusaysa fashalu dowla arrinta labaad waxa weeye fashalka dowladda waxaa ku tusaa inuu qof qura gacanta u gasho dowladda oo dhani amba reer qabiilad amba koox ka ima oo family caailad taan waan arki doonaa taasina way jirtaa arrinta saddexaad jirta maxay dadka oo ay ka dhimato intimaaga wadaniga maxay kala socdaa lahaanshihii wadanka iyo muwaadinimadii uu dareemayay maanta doorashaa socota dadku waxay ku leeyihin maxaa igala socda yaas haya oo kala raaca dadkii dowladdii waxaa ku dhacday imika waxaan hayaa wasaaradda awqaafta waxay soo saartay maanta qaraar aimada loo qeybiyey imaamiyada masaajida waxaa leeyahay dadka waxaa ka tirahdeen kaarkii codaynta qaata dadku bay qaadan lahayn khudbada jimcaha lagu daraya hore ibnu ismaaciil wuxuu ku yidhi miskiidka ka saara siyaasadda ku soo ceshisaa miskiidka siyaasadda markay dadiisa noqoto tashiisu lmasjid miskiidkii waa la siyaasaday markaa 3 shay wuxuu kuseeyaa fashalka dowladda dhinaca dhaqaalaha haddaan ka hadalno waxaa la waraystay jaziira waxay waraysatay ninka xukuma dekadda jabuuti ugu sarreeya abubakar wuxuu yidhi 2 shay wuxuu yidhi gaaska la gubay 12 malyuun oo barmiil oo gaas oo soo bixi jiray ma soo baxaya hadii intaan ku socdo wayna sii biiri doontaa maraykanka dhexdiisa waxaa ku biiray $4 maartay qiimihii 4 kaalonki uu kacay hadduu kaasi kacana wax kastaa kacaya maraykanka dowladda weyn oo u baahan yihiin gaaskooga adduunkii maxaad maranaysaa markaasaa daraaddeed wuxuu yidhi waxaa soo socota gaajo aan xad lahayn bariga afrika jabuutina ugu daraanayso maaha afkayga ya waa afka ninkaas arrin labaad oo dhinaca dhaqaalaha oo dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalahaas ku jirta oo halis ah ayaa jabuuti kusoo socota waxaa ku soo socota waxa weeyaan in ay shirkadaha yimiday oo yar markii horeba inay dib uga baxaan waxaa loo yaqaano huruubu ra'sulmaalkii waa la kala cararaya walidaalika dadku waxay ka fikirayaan xoolaha waaweyn ay haystaan inay geeyaan meel aamina awal duba bay geenayeen dubina aamin bay noqon weyde hadda singabuur baa laga fikiraya singabuur iyo turkiga iyo meelaha ayna bahashu ayna gaadhayn in la geeyo shiinaha iyo yaa laga fikiraya marka dad fara badan oo ila tashaday anu talansiiyo waxaan ku yidhi xoolihiina haddaad doontiin dahab u bedesha meel laska geenna guryihiina dhigta laakiin soo saarto dahab ibsada dahab runta ah dahabkana waxaa jira iminka khaayan oo beena jirtay الذهب الخالص الحقيقي نوعية قالقة قال يبشدا guryahaas ka dhigta waa waxayna yuhuuddu dunida ku qabsatay dagaalkii labaad adduunka dhaqaalahoogoo dhan iyo dhaqaalihii dunida dahab u bedeleen markuu dagaalkii dhamaadeen iyagaa dahabka iibshay iyagaa adduunka markaa qabsaday gartay marka saaba u muuqataa jabuuti imika waxyaalada yaab kale waxa weeyaan imika jabuuti waxay u eg tahay siyaasiyan waktiguu dhacayay doorashadii ugu dambeysay ee uu sameeyey mubaarak xusni mubaarak doorashada ugu dambeysay mubaarak iyaa sameeyey 3 qof baa samaysay sozaan mubaarak islaantii mubaarak iyo jamaal mubaarak wiilkii mubaarak iyo wasiirka saqaafada kaljarka markaas oo wasiir saaxiib ahayeen iyaa doorashada sameeyey
kadib markay doorashadii beenta dhammaatena wasiiradii bay soo sameeyeen soddonkii wasiir muxuu ku lahaa mubaarak 3 wasiir buu ku lahaa wasiirka gudaha wasiirka gaashaandhigga iyo wuxuu ku lahaa wasiirka dibadda 27 wasiir kale ayaa soo sameeyey jamaal mubaarak suzaan mubaarak iyo wasiirka thaqaafada maanta tartanka socda yaa samaynaya labada gabdhood u dhalay iyo inaanu sodogu yahay inaanu adeeru yahay oo xaaskiisu ay dhashay iyo xaaskiisa waxayna u dhiibteen in raad cabdalla miguel iyo wasiirka arrimaha dibadda dadkii kale waa la ekaarteeyey waxaa halkaa ka muuqda wasiirada lasoo wado bacda hadihi اlintikhaabaat almusayafa ee beenta waxa weeyaan waa 25 wasiir oo isagu ku yeeli doono 4 wasiir 21 wasiir kale kuwan samaysanaya ablihiisa iyo islaanta la samaysanaya inaan u dhalay oo liibaan dhahdo waa la ekaartiyey waa laga saaray xaaska la u dhashay marka wuxuu noqday caa'ila marka dhalinyaro badan oo joogta على سبيل دخل دبدها جوجا waxay la xiriiraan kuwan oo ay leeyihiin no ekisiya sidan anaka dawladda socdaan ku jira dhalinyaradi waana ubadeer waxa la soo wado soo jir kareer yalla karinaya dabaqad wata saabi joogtay ku socota kartay waxa tiri sheekh markii la wareystay ninka xukuma dekada wuxuu yiri waxa dhici doonto majaaca badan iyo family macluul badan Djibouti baana ugu darnaan doonto waay muxuu yiri Djibouti ugu darnaan doonto Djibouti wax ma soo saartay Djibouti male beero warshadana male Djibouti dhaqaalihiigu waa retier oo wax maaragtay ku salaysan service hadduu service ku go'o baraki ima wayaan problemka ugu weyn oo maxay waa xusiinta oo badda isku dhifta wayna booteen وين بلعبنا وين شيء بلغ هذا تنتهي من ما نصابه هناك جيبوتي سومالي لاند صوماليا تبع هل اسمه كجرنا عجيب شيخ دور شذا كسعة جيبوتي حتى سداد وقتها باش دور جير أيو صولة بلافت مركي اللي حاد ويمدحوينها لكن مرة بدن أو كمية وحا أو شيء أو دهي مرة ما صولة من دوره وحنا موقت هذا إنه صولة براي ما خلطا ما وضع ماشي شيء oo asaga ku danaysanaya dantooda ku wataa soo celinaya oo la soo laabay ilaa bis isaga raba inuu soo laabto waxa jira akhi fillah laba shay oo dadkiinu markay arimahan ka hadlayaan indhaha ay ka laabtaan ama ayna arag maxay yihiin labada shay waxa weyn akhristeena haga analysis-ku waa daciif mid labaad ma eegno qofkan siyaasiga ah ee kursigan fadhiya amba ka qoodaya kursigan أنا محن كايد محن قبلونا شيء كذا دولة منين محنا مركها وحنا هاي ولايات دولة كلا إليين أو دولة ديبتي مركها نيك اللود يبنى يويك قرر يا هذا هو حلقة وين قررتي يا إن لو وصل بدي قال لما نقول من اللي جعلي من اللي جعلين كلا دور لو هذا فين لو وصل ما دام أدولي حروبين بربلها هم حنا قناع وح دور شو كسب حيكي يكو أي وتان سيكو وتان وصل بحياة ولذلك إسماعيل مرجع له هذا أنكو وحن بلوني لبي كنتم كيو سديد كنتم كيو يا أنكو دورشة بلوني برا أنكو هذي سديد كنتم كيو كنتم كيو محربنا فرنسيس بجوجي فرنسيس ما كان وسميني قف ويسقو وتان سو بحي محمود حربي لدقاجي حس جود برضو صار محله دقاجي حرب قبل دوم بها حس يقول إنه هو استعمار دوم وقتها إلى أن حرس الوذبي marka sida daraadeed wi nooba yaa sameyn jirna ha iyo maya marka maya waxaan doonaa gobonimo ha Faransiis baan doonaa haado ba soo baxay marka waxaan kaaga jeedaa akhi fillah waxyar in Ismaaciil Umar Geele wuxuu yiri 2016 waa 10 sano ka hor marka kan waan ku dhaaran karaa nin buu kale waraysanaya inaan soo noqonin waan dhaaranaya marka kan مرضاً بي سي وريسين يسلانتا فرانسيسكو حوري قعدت صار وقاضي وين وينادي دأبا يقبطي دستور كنا يموقع لنا صنعه مركا ما صار عباناي ما الله دستور كنا يموقع دستور كنا بدي صلى الله عليه مركا ما حاكي سنة يقف كرين وحا ودن كبدو البودو أنا وحا لهي
awood dibadda ayaa wadata awoodda dibaddana anu qorataa loo aqaana waa faransiiska weeyaan faransiisku asagay rabaan marka faransiisku waxay yidhahdaan berigii hore doorashada gale waxay yidhahdeen maxaad laba nin bay isku haysteen faransiisku nin ceelaaba loranayay oo dhintay uun 2 sano ka hor doorashadii oo dee siduu u dhintayna laga shakisan yahay muxuu san ugu dhintay ilaah u naxariisto iyo ninkan ismaaciil cumar geele waxaa isku khilaafay faransiiska dhexdiisa waxay u kala baxeen labo faransiiska politisiyaanka siyaasiyiinta iyo faransiiska mukhaabaraadka faransiiska siyaasiyiintu waxay dhahdeen ceelaabay danta faransiisku ku jirtaa waa in madaxweyne noqdo leanna waa nin francophone waa nin francophilia waa nin saqaafada faransiiska iyo dowladnimada yaqaano isagaa noo wadi karaya waxaa loo yaqaana istimraariya dariiqii xasi guuleed buu sii wadi karaa dhinaca dowladnimada continuationka qolada kalena waxay dhahdeen may l'homme fort arajul aqwa hadduu noqon waayana waddanka baabiin karaya kawayna ismaaciil madaxweyne noqdo kuwaasina waxay hayeen ciidanka iyo waxay hayeen iyo sirdoonka walidaalika ayaantuu ceelaaba dhiman doono ilaah u naxariistee waxaa la ii sheegay ilaahay anu ma ogi laakiin waxaa la ii sheegay hoteelka sharaton inuu nin ciidamada faransiiska ama mukhaabaraadkoga inuu kaafiye la qaatay kadib markuu guriga yimid inuu dhintay oo la qabtay ninkii dhigdhigayay cuntada markaas oo sharaton ka shaqaynayay bacda sanad wuxuu noqday baarlamaanka u galay kafeteriada dambe dhinaca biyaha ninka asaa ka shaqaynayay ee halka shaqaale ka ahaa wuxuu noqday baarlamaani wuxuuna bedilay nin culus oo la oran jiray muumin badoon faarax oo wasiir culus ahaa yani waxaan waxay u baahan tahay maanmeydhka dadka in laga saaro maanmeydh baa dhahaa marka saas maaragtay yaa isleenahay ninka waxaa ku dhajinaya waa raggaas weeyaan raggaa walidaalika halka markaan ka hadlayno mawduuca dagaalka iiraan iyo baan wax xaggan u dhow wax ka sheegi doona insha allah gartay sheekhana ee dagaalka ka socda bariga dhexe si kastaba dhammaadkiisa ha kusoo gabagaboobo goorta la gaaro balse saameyn noocee ah ayuu ku yeelan karaa dhinaca jabuuti dhinaca dhaqaalaha maalan akhi horta jabuuti iminka waxaa fadhiya qawaacid amba waxaa loo yaqaano saldhigyo ciidan oo ka mid a waxyaada dhaqaalaha keena laakiin dhaqaalahaasi lama maareeyo si saxa waxaa ka mid a maraykanka iyo faransiiska iyo china wadana yar iska joogaan oon badanayn su-aal baa laakiin taala jarmaloo kale wuxuu degan yahay hoteelka aad sheegtay jabuuti waxaa soo socda in ay 5 mucaskar isku diriraan 5 qolo kow horta mucaskarka maraykanka wuxuu rabaa in uu barbaro u guuro weliba cabsi weyn waxay ka haysataa dagaalkan ka dhacay bariga dhexe sirta hubkiisa in la helay oo jabuuti laga xaday walidaalik baa diyaarado waaweyn oo la ridi karin baa soo dhacay marka wuxuu leeyahay see loo helay halkee laga helay waa jabuuti marka jabuuti isku guuro waxay ku noqotay laba baarmaan faransiisku qarbigii iyo maraykankii oo kala tagay waad aragtay iminka aad baa loo sii kala durkaya marka faransiiska oo metelaya qarbigii meesha inuu isaguna kusii xididaysto shiinuhu oo fursad u arka bixitaankooda shiinuhu waa isaguna wuu adkaysan doonaa waxaa soo socda turkiga xalan aqrinayay in turkiga diraasa lagu sameeyey in saldhig jabuuti laga samaysto jabuutina gacmo farma ku sirweynaysa ruushkii waxaa aqrinaya ninkii dogiin wuxuu leeyahay hadday degi weydo suudaan waa in eritrea amba jabuuti laga sameeyo saldhig ruushku leeyahy jabuuti amba eritrea marka meesha marka waxay noqonaysaa meel laga indheeyo bariga dhexe laga indheeyo dagaalka batroolka iyo gaaska laga indheeyo marka jabuuti mustaqbalkeegu wuxuu noqonayaa meel dagaal oo ay fadhiyaan ciidamo dagaalamaya oo dhexdoona is haystaa iswaardiyeynaya iyo shacbi miskiina oo wuxuu cuno doodoonaya oo meesha fadhiya
jabuuti hadday isu bedesho arsenal ama meel hubka la dhigto ama qawaacid ay leeyihiin ciidamo shisheeye maxaa dana ugu jirta dowladda jabuuti ismaaciil cumar geele muxuu mid walba oo ayaga kamida usoo dhaweynayaa oo uusan uga fiirsanaynin ishardiga iyo dhulgariirka ka dhici kara dhexdooda iyo dadka inay arintaas u daranta qaar iska wadaado oo iska basaad ah waxay lahaayeen waaba dakaa siyaasi lahayn waa intelligence siyaasi lahaayeen laakiin waa qimatul qabaa siyaasi waa doqonnimo siyaasi meesha ugu sarreysa weyaan maxaa yeelay dunidan waxa isku haya waa China iyo Mareykan China iyo Mareykan is haya iyaad 3 kilomitir ama 4 kilomitir ku keentay waa ka kala xaday hubkii hadhow toole xataa su'aal baa mar dhow la darxiyay meelaha la isku diriri karo China iyo Mareykan maxaa kamid ah bariga fog iyo Djibouti meelaha ciidamadu isku diriri karaan bariga dhexe iyo Djibouti baa yani qaarna waxay yiraahdeen bariga dhexe iyo badda cas يدهدين ولذلك جاينوه إمك وحال إيه شيء إنه كاني هو أن عادي هاي جيبوتي أو وطلع علي إنه كل دفاعه دناها أي شيء ليين كديم مركز إيران ببورتو كديم مركز إيران هذا ببورتو أي ببورتو أو كو إلى اليوم ما دام مضيقي ما هذا بيمرنكي هرمز حلميو أم بو سحن أدعيو بضع عسبة بدليس marka jaynu imika uu iska maraa maartay bi Amerika oo gashay dawladdu laakiin dagaalka haduu sii kulaado ma mari doono oo hubkiga gaariya laakiin hagan marka waa istaraatiijiyad weyn bay leedahay ku leeyihiin laakiin isagu istaraatiijiya kama leh isagu wuxuu leeyahay wax ka qaado lidalika nin Mareykan xaga fadhiyo wuxuu ka qoray mar wuxuu yiri mar dood ay ka dhacaysay wuxuu yiri waa nin dollarka ku fikira kii u badiyana ka qaata kii u yareeyana waa cadhooda marka dhinaca lacagtooba ka eegaya saas u aqbalaya ciidamo badan inay soo degaan xagan buu yimid Mareykanka Obama la kulmay Obama ku yiraahdo lacagta IBC Shiina ma keenayo Obama waa laga sheekaystay lacagta 20 milyan baa lagu daray lacagta kirada markuu soo laamena Shiina yimiday Shiina wuxuu istakiish lacaga wuxuu maxaa lacag ku soo maraysa baaran iyo wax ma wayado xagan isku dhaqan ma uu qaatay wuxuu ninka ka fiican soo dajiba wuxuu fikiraya ma waa ninkii u badiyo buu qaadaya istaraatiijiyadu la galay Mareykanka ka boodayba ولذلك ninkaasi wuxuu yiri in la aamini kara ma siyaasadiisa la aamini kara ma laakiin China waxa u ballan qaadeen inay ilaalin doonaan inta ay ilaalin karayaan gartay maadaama aan ku jirno weli arrimaha Djibouti iyo cutubkan labaad ee Djibouti ku saabsan dalka Djibouti geele kadib sida uu u ekaan doono ma la odorosi karaa maadaama aad soo sheegtay Ismaaciil Cumar Geele doorashadiisan hadda inay u eg tahay tii gabagabada ahayd Xusni Mubaarak markii uu sameynayay xaaladuna ay sii kala fogfogaanayso u aragto inayba gabagaba u dhowdahay Geele kadib ma la odorosi karaa horta siyaasiyiinta reer Djibouti hadday yihiin kuwa dowladda ka agdhow iyo kuwa mucaaradaba fikir su'aasha ma darxiyaan maada bacda Geele kadib maxaa dhici doona waxay darxiyaan geela wareeriyay isna geelas wareeriyay isaguna is wareeriyay dadkiina u wareeriyay laakiin geele laba shayba u dhamaaday oo ku sheegay siyaasiyan u dhamaaday oo warqad dhamaatay weeyaan dhaqaalahaana uu qoray waa mashruuc ku dhaafay weeyaan mashruuca Ismaaciil Cumar ka dambeeyay muxuu noqon doonaa mashruuca Ismaaciil Cumar ka dambeeyay wuxuu noqon doonaa laba shay oo waaweyn baa dowladda ku dhacay dowladdu uu buriyay ninka iman doonay madaxweyne noqon doona wuxuu iman doonaa dowladda burtay oo nidaam lahayn hadduu yahay mid dowladda ku dhex jira oo kay dhex yimid ee mid dibadda ka yimidba uu la daali doonaa dowladda iman doonta midda labaad ee halista waxa weeyaan dadka waxa ka burburay aqliyadii kala dambeynta annaka Faransiiskiina guumeystay wuxuu baray kala dambeyn wax dhacdo waraqad la hadasha system dowladeed waxa waan naqaanayd taana waa la burburiyay marka labada burbur wuxuu u keenay inay dadku ciyaalkan imika dowladda soo galay ee koray ma garanayaan waxay ka dhantahay saqaafatu dowla maartay culture d'état ma gar male amba waxa loo yaqaano ur dowladeed male dhakatu dowla male waxay leeyihiin marka wax la dhahdo qaado dhaaf ninba ninka uu ka badiyo waa ninba ninka uu ka hor qaato weeyaan ninba ninka uu ka hor dhergo iyo ka hor horumar gaadhi weeyaan laakiin wixii kala dambeyntii iyo qalinkii iyo horumarkii waxbay ka tageen marka maxaa dhici doona bacda Geele burbur dowladeed baa iman doona iyo faqri dowladeed ani waxaan arkayaa
haddii ay iman waayaan laba qolo haddii iman waayaan nukhbad siyaasiya elite xolha labeen siyaasadeed iyo fikradeed oo dejiya maadaa bacda geelle labo hadday iman weydo reer galbeedka in laga gado qof macquula oo jabuuti maamuli kara oo amba dowladdaba ku jiro macquula amba mucaarada oo macquula haddii ay iman waayaan waxa weyan waddanka halis buu ku jira laakiin dictatorada dadka ah sida maalan madaxda dictatorada ah kadib ayaga in laga raysta ma jecla inuu imaado madaxweyne ka fiican oo dadku ka jecel yihiin sidaas daraaddeed waxay door bidaan marar badan dowladduba inay burburto dadkuna is cunaan sidii siyaad barreba uu sameeyey kuna hadloo yiri igama dambeyn doonto dowlad iyo dadba dadka reer Jabuuti ma ka fiirsan karaan inta wacyi yeeshaan in aysan ku dhicin wixii Soomaaliya ku dhacay siyaad barre markuu ka baxay okay horta waxaa jirta su'aal ay isweydiiyaan dadka Soomaalidu waxay dhahaan haddii la sabri lahaa siyaad barre oo markii uu dhintay Soomaaliya haddii la sabri lahaa waxba ma dhaceen dadka aanu aad baan ugu qoslaa waa adoo ay dhacdo qof kansar leh haddii la sabri lahaa ma dhinteen kansar buu leeyahay jirka dhan galay waxaad leedahay hala sabro uu noolaanayaa hada laysa min atabiica ilaahay u karaa awoodda ilaahay ma qabano lakin hada laysa min atabiica qofkani waa dhimanaya jirada waa lagu dhintaa jiradaha dowladaha ku dhaca waxaa jira qaar kansara oo la yidhaahdo haddii uba duntayba dowladdu juthatun haamida waa juthat sulaymaan waxa meesha fadhida okay dowladda markii haddii la sugi lahaa dowladdu ma dunteen dowladdu ma jirine gobolka waqooyigu go-onaaba somaliland puntlandna wayba go-oneedba rasmiyan jubbadan reerahaas ka haystay wax jira ma ahayn xamara bis nooleed xamar unbaa lasoo gala xamar baa laga qabsay siyaad barre meel kaloo u nooleeday ma jirin okay su-aashu markaa waxa weeyaan dowladda iyaa dumiya soomaalida qaar waxay dhahdeen dowlad xun waxay dhaantaa dowlad la-aan waa qaacido khaldan qaacida saxan kuu sheegayaa dowlad xun baa keenta dowlad la-aan qaacida ma fahamtay mika sheekho dowlad xun waxay dhalisaa dowlad la-aan ee ma aha dowlad la-aan iyo dowlad xun isma gara dhigo haddii dowlad fiican jirto way waari haddii xun jirtana ma waarayso hada ibn khaldun baa sheegay ibn taymiya sheegay iyo culimada adduunka dhan baa sheegay marka dadka reer Jabuuti ma rabaan damaar burbur ma rabaan laakiin ma celin karaan sunno kawniya هذا هو سؤال ما هي أنا أفكر نصيحة عاطفية سنة كونية من العلي كرها مركرتها قف دمن يهدمن ما يمحل لكن ولا تحضري كرا ولا رجل تاو كوجي تحضر وجرا لكن أديك ما أنا وحنا كفكرة يا هدو اسماعيل الوطن كبابي يا بابي اسماعيل بابي اللي هو واحد بابي قف معارضة هدو تقول وبيه محاسب ويصبرهم يصبر كران ويصبر لا سجد بينه وصبر يعني لأنه ما جعل يكون رجبت نبض يجعلي ما جعل طيالي نوع أسلوب ما يكون ولا ضام مجرى غير وضير ويان أنت بيكون لي قرتي إيه شيخنا أنه أو إيمانه عتبك صدحات وأنا عتبك قدام بيو أفر سؤال كلية أينو كينينا وحين نكو إيجينا مثلا دجالك بريء دحى يو mainly خطبة دونالد ترامب sida saqafka sare iyo toonka kulul ku socotay ee uu soo jeediyay sax weeyaan markaad eegto midalan dhinacaas waxa la isweydiin karaa sideen u akhrinaa khudbadii Donald Trump maxaa kor u qaaday oo saqaf sare ka dhigay khudbadiisii goortii uu hadlayay okay horta Trump waa nin yaab badan dadka qaar waxa uu yaqaan ninka waalan dadka qaar waxa uu yaqaan ninka doqonka laakiin أنا waxaan u yaqaanaa ninka wuxuu samaynayo waxa adigu taqaanaa nin waxa uu samaynayo og garanaya markuu samaynayo iyo sida uu samaynayo laakiin dadka u sheega wuxuuna samaynayn wuxuu samaynaya ma wuxuuna samaynayn dadka u sheega dadka wuxuu ku mashquuliyaa wuxuuna samaynayn intay ku mashquulshayn buu wuxuu samaynaya la yimaada marka ninka waa sidaas 40 sano ka hor isagoo oo madaxweyne ka fikirin baba yaa su'aal weydiiyay hadaa madaxweyne noqotid shaqada ugu horeysa qabanaysa maxay tahay Iran ma baabin wa 40 sano ka hor oo intay jirtaba Iran tani
sidii afartan sano jirta sida jirba markaa dagaalkii Ciraaq way ku jirtaa qaadiyaan bay taagtayba Iran iyo Ciraaq waxaan baabiin Iran afartii sano hore muxuu baabiin waayay afartii sano hore waxa ka horjoogsaday dawladda rag u keenay oo loo yaqaan dawlad camiiqa ragii gunta dawladda ku jiray oo la socon imika wuxuu keentay kuwa la socda uu fahmay oo sidii Afrika shacabka ku tumaysan oo markii hadlayaan waxay ku leeyihiin madaxweynuhu wuxuu yiri madaxweynuhu wuxuu inoo amray madaxweynuhu wuxuu noo tilmaamay madaxweynuhu wuxuu noo jideeyay saas Afrika mu sayid joogan marka taasi waa mid kooda yaan marka ninkan khitaabkiisa muxuu kor ugu qaaday waa su'aal muhiim weyn waxaa la filayay khitaabka saddex arrimood oo waaweyn uu ka hadlo inuu ka baxayo ururka loo yaqaano ururka dagaalka NATO inuu ka baxayo taas la filayay labo inuu dagaalka joojinayo saddex inuu sheegayo inuu guuleystay oo guushiina uu gaadhay nuclearkii inuu burburiyey sidaa daraadeed shicibka Iiraan inuu baabiyo danka ma aha saas la filayay saddex la filayay بحوث الشيء محو دايما لسويدينها وصار ugu qaaday kow waxa la yiri muraacatu alhayba haybada dawladda yu cabsooday Iran waxay leedahay dagaalku markuu istaago ana guuleystay survival keeda guusheeda marka cabsi weyn ku tahay marka shacbiga Mareykanka wuxuu ka dhaadhicinaya khadaabku sheegi doona mukharaadkiisa taas marka haybadii dawladda Mareykanka ilaalinteeda u keentay inuu kor u qaado dhado waan baabiinaa kow labo ee baak biga AIPAC إسرائيل جرا أوروكاس waxay yiraahdeen ilaa ay dawladda Iran ay gaaraysa meel aynan Israa'iil ayna wax ku sameyn karin oo la baabiyo taariikhdeeda meesha dagaalka joojin kartay saddex ragga loo yaqaano tujaarta hubka oo imika hub bilaabeen hubkii sameeyaan oo 200 oo bilyan oo dollar baa loo ya miisaaniyada lagu daray dagaalka ولي لم يستعمالين دي هيك جوزنا تاعك أبعون هورت رجع تجار أصلحنا ورجع قرار كحي كل ينتشك أفر رجع متدينين تعال إله يقول هذا إن إسرائيل وقرقاران بروتستانك ولي يكون متدينين تعال أفر قرض الله يقانو المسيح الصهيونية مسيحية الصهيونية لبضع سنة ويكون جيران إيو قولش أنا قولت مارت كلام مهمة qolada kale muhiimkii wax weeyaan qolada isaga la fadhida ee ku meersan ee wararka u keenta waxay leeyihiin Iran way is dhiibtay in yar baadhay dad ku adkaysid way sii dhibaysaa kor u qaad baasha kor buu qaaday su'aal baa la isweydiiyey ma kor u qaad hanjabaad Greek ba beebana mise walkuna waxaa la ogyahay in ay socoto heshiis hoose oo adag wana ku daray heshiiskan waan wadaynaa heshiiskaasi ninkii waday imika iyo gurigiisa lagu garaacay la dhaawacay laakiin Israa'iil ba garaacay oo Pakistan inuu imika taga ahayd okay arintaasi markaasi ma heshiiska la soo dadajinaya wuxuu isagu sheegay u yiri rag dawladda ku jira oo kuwii hore adeegi aan lahayn iyo dawladda joogo nolosha kasta يا لقى لي كسي عبسي ويكتفيو يا يكليهم يا تاسينا ولا نقاش لكن وحويان أرنت ugu muhiimsan waa dagaal la yiri waa dagaal la yiri saddex arrimood baa waa khalad dagaal istiraatiiji ma هي استراتيجية الحرب ولا قال لا إذا مرق بس عزيلين كمان دوت إذا بدك كجرا أرنتها لبعض ودجال أن وافقسني قانون كعالمي بينها فرانسيسكو حولي دجال أنا شقة كلنا معها نظام كأدوية وكبحي وحنا قلنا معها ودجال إسرائيل ما يخلق لين أريس ضحاهم مهمة جدا ودجال لو قالي لأجل نفط غاز كده ردي يا لو قالي ويان مركا عقلي غاز كويان عقلية النفط عقلي غازنا waa loo galay nooc diin ana way riixaysaa diin way riixaysaa okay kor u qaadkaasi marka halka la geeyay waxa lagu daray laba shay oo waaweyn oo adduunyada ka dhicin waxaan burburinaynaa korontada wadanka maxaa ka dhalanay marka ma garanaysaa korontada khaliijka dhan burburaysa iyada burburinaysa markii korontada burburtay kana la burburiyo maxaa dhalanay ma taqaana hadhow tar dhismaha korontada lacagaha lagu bixinayo shirkadaha Mareykanka qaadanay
hadmigaad samaynaysaa binaagana adaa lacagta qaadanaya caqligaas inuu caqli waa caqli amriiki waa caqli nafci pragmati weyaan arrinta kaleete ee cajiibka wax weeyaan hubka aa ku burburisayna ganacsatada hubka ee waaweyn ee dalka maraykanka ayaa dowladda lacag badan oo keeda u taalay la siinayo ku baxaysa. ka faa'iidayo Waa ku baxaysa. labada dhinacba waa faa'iido dowladaha khaliijkan wax iibsanayaan hub badan hubkan wax laga iibsanaya maraykan amazing waana amarna shirkadii inay hubkaas badiyaan ay soo saaraan patriotka imika aad loo samaynaya patriotkii waxaa la yidhi 7 jeer hala laabo patriotkii samayntiisa difaacii maaragtay waxaasoo dhan waxaa loogu talagalay waa dhaqaala waxaa la tijaaratu silaax adduunkana waxaa ugu lacag badan kuwa silaaxa ka shaqeeya kuwa mukhadaraadka kuwa hubka ka shaqeeyana waa kuwa ugu lacag badan kuwaana yaana dowladaha taasiiriya walidaalika wuxuu dhahdaa gaaruud ilaah naxariista wuxuu oran jiray waxaa gargaara waxaa dunida maanta maamula 3 qolo ko bayca mushtar hubka sameeya ama mukhadaraadka sameeya waa 2 iyo dhalinyaro yaroo warbaahinta qorta maantana warbaahinta maxay noqotayba maxay noqotay warbaahintii baraha maxaa dhahdaa bulshada baraha bulshada okay waa saas xasan u qaadaya gartay okay haddaan usoo wareegno qeybta labaad ee su-aasha labaad maadaama aanu ka sheekeynay khudbadii Donald Trump iyo say ahayd Iran sidee uga jawaabtay khudbadaas horta Iran khaladka weyn ee dadkeenu ay galaan waxaa kamid ah amba isaga Maraykanku bagalayo Iran iyo Iraq buu isku haystaa amba Iran iyo Afghanistan amba Iran iyo Falastiin amba Iran iyo Sacuudiga madaxiisa waxba ku jiro kale Iran ma aha dowlad aynkaas Iran waa dowlad culus oo taariikh leh oo muassasaad leh waliba waxaan ka yaabaysaa mucaaradkii Iran muxaafid buu noqday way soo tageen cilmaaniyiintii wadaadday noqdeen waxaa dadka u kala cad dowlad iyo dal iyo dan way u kala caddahay danta waa laisku khilaafayaa laakiin dowlad iyo dal laisuma khilaafayo kulligood way ka midaysan yihiin walidaalika maalin dhoweyta waxaa la cilaamiyey badan ba ilaa 10 malyan baa tababar haysata 10 malyan baa la Iraaniyiintii isa soo qoray ciidanka imisa soo qortay 6 malyan 6 malyan oo qof baa saaka warkii ugu dambeeyey isdiiwaan gelisay ciidanka عدد هائل malyan iyo bar waa ciidan rasmi ah marka jawaabtii taba ka mid ah jawaabtii waxaa ka mid ah in ay shacbigii dibadda joogaan ay banaanbaxayaan iyadoo taas dhacayso oo uu la banaanbaxaya madaxweynihii uu la banaanbaxaya madaxweyne wasiirka arrimaha dibadda intuu xalay soo xidhay wax madow oo dumar iska soo dhigay iyaa sigoo dhex jooga iska saaray waa anigi weyaan wasiir ay ku soo wada yaacada dhulkadeen midda saddexaad ee muhiimku ah weyaan markii khudbaddu saa u dhammaatay 12 saaruq baa ku dhacday Israa'iil waa jawaabtii ugu horreysay fawran saakana waxaa ku dhacay 2 burburisay meelo korontada ah iyo meelo warshado waaweyn ah Haifa marka adiga mushkiladdu waxay ka socotaa mushkiladdu waxa weeyaan jawaabtu way bixisay Iran arrinta kale ee muhiimka wax weeyaan jawaabta la bixiyay waxaa ka mid ah 2 jawaabood oo halis ah matiiqa biyo mareenka la dhahdo Hormuz lama furayo wala sii xidhaya waxaana la goynayaa kaabaaladii telefoonada ee Facebook iyo adduunka la iska xidhay internetka halkaasuu maraa 65% way go'ayaan lagama yaabo inaad ka shakeyno laga yaabo si loo xalin lahaa baa la doonayaa way goynayaan waxay kale sheegeen say u goynayaan dee waa gaw maraa badda hoos maraa madiiq hoos maraa hormuz ciidamada loo diray way soo goynayaan xarko khalaas waa la joojinayaa qolada kale waxay idhahdeen badda casrna kusoo biiraysaa way xidhmaysaa iyadu arrinta kale waxay sheegeen idhahdeen khaliijkuna ma noolaanayo marka laga reebo cumaan way cumaan looga reebaya cumaan waa dowladda dhexaada saldhigana maraykanka culusna kuma le iyo masaalix badanna kuma le waa kaas gartay jawaabteed waa taas haddaba waxaa kaloo la isweydiin karaa ujeedooyinkii laga lahaa dagaalka siday ugu sabiibaxdeen dusha barafka bariga dhexe waxaan la yaabay khudbadiisa iyo hadallada wax ku jiray isbedelka nidaamka iyo alkowka ahaa wuxuu iminka nidaamka ma bedeleyno nidaamku uu is hagaajiyey buuri ee kelmaddu isticmaal nidaamku uu is hagaajiyo qaar macquul u keenay laakiin waa nidaamkii un
kuwaan la shaqayn karno oo macquul u keenay ها isaga isbedelayo سياس بدلاي وحو يري محو إيران وان ترترينا هذا وحو يري مالتي دويتو إيران وان إدبنينا اسبدل راح أرسل ده هذا وحو يري نيكلير كان بابيننا وحو يري نيكلير كو وحانا بيتاقوك أخو شاي صورة قل ماها إنا نيكلير كقعدتكو قبل بابيننا مقاري كرا نيكلير أفر wuxuu sawaariikhda dhaadheer baan baabi'inayna waana baabi'inay buu boqolka 90 badan laakiin maanta wuxuu yidhi waxa weeyaan maanta ugu shalay bay ugu badnayd afartaa bilo isbuuc daa ku socdo shalay ugu badnaay inta sawaariikh ay turtay okay wuxuu yidhi madiiqa la furaa badbareka la furaa marka wuxuu lama furi karee inuu ku furta shiinaha yani aan ummadan ma lihi furta buu ka yidhi iyo faransiiska iyo ingiriiska iyo yurub إنها كيف يسوي؟ هذا فرنينا إنك أنت على يقول أنا مفروض يقول وحول عيدا كدولكو مقليان إنكو عيدا كدولكو مقليان صوبيري دياردي صوبيري دودي صوبيري وحدو صوبيري مركا وحد مودا إن أونا لهين هدف عض واستراتيجي ويكسو شقيا قولوا يجيب بيتاغونكو لكن أي تاي قولوا ذا أقل كعب بأمرك سينسا بيتاغون ugu qasbayna qaataan qaraarka walidaalika nin weyn oo magaciisa qariyo wuxuu yidhi waa dagaal maraykanku galo kii ugu foolxuma yaan galay nin kalena wuxuu yidhi waa dagaalkii ugu yaraa istiraatiijiyadan ugu daciifsanaa ee aan gallo wuxuu yidhi mid kale saddexaad wuxuu yidhi goorma ayuu maraykanku dagaal istiraatiijiya kuma guulaysta horta أفغانستان بعد 20 سنة لقولستي فيتنام بعد 20 سنة لقولستي سكالي تونسن ها عراق دوقود حق علي إيران باكي قالتي مال أوتو قبصدي وقول كسو هوي مجلس لكن أمدو دمي وضنو بابي لكن مالو قعنتا كل ولا يمكن لقى جعليها وهيستو مجرت أنا هين جبانك قرتي إن شيخنا محيطة هاي مشكلة ذا مثلا دلالك خليجك يدوني عربتا محيين مستقبل كولا حالة أدرسي كلام مستقبل كولا لأن صاحبنا هاي ساكا وحو قري إيجستا وحو قري كلمة يابلة وحو المشكلة الدولة ده عربته وحويان والدولة ده كرتي لهين قرح بداية كرتي مالي أود مالي عجزي النبي يقول كدو عيسى عليه السلام اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل عجزك وأضو كريا ولكن استعمال كريتانكي كسل كنا وأديكو أو بدن كاغو دياري هاي لكن أن لهين إرادة وحكو بديش لبدا من يقول كدو عيسى عليه السلام أنا كمركا محول نكني محول مفكر وين محول مشكلة دا أدون كعربتا إيه خليج كعربتا وحين قدرة نجري كرتبها نجري نينك الله صاحب لا يسقى يا أسوق الشيخ محاكو داعي وهذه سنة مما محول المشكلة دي هو عدم الإرادة ربيتان مليين هدان ربنو كرتبه يلا إلا العقل وان هيسنا دولنا وان هيسنا تركوب من شيء دورا يمكن أريد صدحات أنا أمرك أقرأ وحايد ماها إرادنا قدرنا ماها كرتنا ماها ربيتنا ماها واستقلالية حر منين ما لما ذح بنانا ما ذح بنانا دولة منين ولذلك الدولتين واحدة دولة ريعية ضوا محي وريتر هو محي ودولته قاس لوسو صاري كو شقيا قاس كا هدي ودو كبخو بابايا أما ودولته السيرفيس كو شقيا هدي لو يمو وايو بربريان ولذلك إيران انت أي دقالميسي هدي لغو قاضو وطن عربيت وبابايا لأنه مانا بنيو مانا اسمها لا تحتيا أوكي مركا مشكلة دا الدونك عربت waa maxay iyo muslimiintu waa maxay dowlad la'aan sidaan sheegayna Soomaaliya jubad ka sheegayna iraada la'aan karti la'aan gubernima doon la'aan istiqlaal ma haysan xorma waa dowlad leeyahay okay shil wuxuu keenay maraykan waan ilaaliyaa imika waxa ogaatay inuu ilaalin ma eri karayaan hadana naga soo ma oran karayaan ma oran karayaan shiino ma yeelan karayaan hadaa shiino maxay u yeelanayaan halkan waxaan ku hayaa diraasad tiri saddex wadan hadii midoobaan imika إسرائيل هي هلس جلسي وإيران ودول كليد ونقبتين كجرتها فرط سنوات تركيا هي مصر هي السعودية
iyo Pakistan hadday isku biiraan ay dhahdaan Israa'iil haddii idabiyoodu waa weerarayna haddii dhahdaan waxaa la soo saaray ma taqaanaa Turkigu uu ku xoog badan yahay Israa'iil marka lagu daro Pakistan uu ka sii xoog badan yahay 2 goor marka Masar lagu daro way ka sii xoog badan Sacuudiga way ka sii xoog badatay imise noqonayaan dadkaasi 400 milyan oo qof weeyaan juqraafigu intuu leeyahay arkaysaa dhaqaaluhu intuu leeyahay arkaysaa hadday midoobaan ay sameeyaan taxaaluf siyaasi iqtisaadi askari hadday sameeyaan Israa'iil Gaza way ka kici difada ka kici Italy oran laakiin maxaa ka horeeya istiqlaal ma awoodaan gumino ma haystaan bas ma oran karaysaa Sacuudi ma oran karayaa Pakistan siyaasiyiintu hadday hadlaan qaraqaan Mareykanku iyo xukuma ciidan ku haystaa afkun baa la sameeyay si Amraan lagu sameeyay ya Amraan nimanka markii dhawada balaayadii ka soo baxday meesha waxaa loo jiray jasiiradii fusuq maxayd Abistan maxaa lagu qoran tarnaa Imraan waa wadaad halis ah islaamku aaminsaabeen sabab loo dilay iminkan uu dhabeelaya xabsiga lagu hayaa soo dhabeelaya marka mushkiladda marka adduunka carabtu waa maxay waa hada mushkila dawlad la'aanta weeyaan turkigu muxuu ku yardhamaa waa dawlad iiraan maxay ku dhantaa waa dawlad laakiin kuwani ashbaahu dawla ma xataa dawladu xataa uma eko waa sidaan kuu sheegay maalor cagayne waa ugaasiya dawlad hele dadaan isima intaas ayaynu sheekhana kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka maanta daawadayaal